بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجكena dhabka hadal qaybtan waxaynu ku dul istaagi doonaa waxa saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay baraha bulshada si weyn uga socday waraysi taxana ah oo laga qaaday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ama Fahad Daahir Ahmed oo markaasi isagu ku sugan wadanka Turkiga waxa waraysigaasi qaybihiisa kala duwan lagaga xog waraystay intii uu joogay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo waliba marxaladihii siyaasadeed ee markaasi wadanka Soomaaliya uu soo maray qaybtan waxaynu ku dul istaagi doonaa qaybtii ugu dambeysay ee waraysigii Fahad Yaasiin oo maanta la baahiyay isla markaasina uu kaga hadlay arrimo xasaasi oo markaasi ay kamid tahay ama uu kamid yahay kiiskii gabadhii sargaalada ahayd ee Soomaaliyeed Ikraan Tahliil Faarax oo markaasi iyadu horay loo waayay isla markaasina hay'adda sirdoonka oo markaasi uu madax ka ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu sheegay in ay dileen kooxda al-shabaab oo ay u gacan gashay gabadhaasi kiiska gabadhaasi muran iyo isjiid badan ayuu soo maray waxaana si weyn loogu eedeeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay kamid ahayd saraakiisheeda isla markaasina Fahad uu madax ka ahaa in gabadhaasi ay ku maqan tahay hayeeshee Fahad ayaa markii ugu horeysay kiiskaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in gabadhaasi ay dileen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina aysan wax shaqo ku lahayn dilkeeda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo waliba si gaar ah isaga oo markaasi madax ka ah waxa uu sheegay madaxa markaasi dawladda ka tirsan iyo kooxda al-shabaab oo iska kaashaday gabadhaasi dilkeeda inay markaasi qayb ka ahaayeen xogtiina waxa uu sheegay in 10% kamid uu la wadaagay warbaahinta 90 kalena marka loo baahdo hay'adaha ay khuseysay inuu la wadaagi doono haddaba arintaasi oo arin uguba ku noqotay dhagaha dadka Soomaaliyeed saraakiisha ama madaxda uu saaray in gabadhaasi ay dileen ayaynu eegi doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulla oo geestan iga fadhiya Jaamac ku soo dhaweeyso ma sha Allah wadoo way Fahad Yaasiin mastaqana shakhsi kulina sartaan way bal waxaad iga warantaa Fahad waraysigiisa qaybtii saddexaad buu maraya qayb afraad baa dhibaan qiyaasaya oo maliyadana waa ogaan doonaa wuxuu kaga hadlo waxaad moodaa على مسارك مدحوينه حسن شيخ محمود iyo gurigii maxay Cabdullaahi Farmaajo waxa lagaga mashquulay taxanaha Fahad Yaasiin oo si weyn ay Soomaalidu isha ugu hayso musalsalkan arinta Ikraan baan maanta dul istaagayna qaybo kale oo aan kaga hadli doono waraysiga Fahad waa dhici karaan laakiin arinta Ikraan Tahliil bal qaabka uu Fahad Yaasiin uga hadlay sida aragta بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جود هم بود الصوماليات ميل كستا جوان بوحن الله السلام الله عليكم Fahad Yaasiin marka laga yimaado iyo waraysiyada guud ee uu maartay ama waraysiga tirada badan ee uu bixinayo marka laga yimaado waxaan filayaa maanta waxa si gaar ah uu uga hadlay dilkii allaha u naxariistay gabadha Ikraan Tahliil ee la waayay ilaa iyo haddana laakiin isagu uu maanta xaqiijiyay meeshii ku dambeysay in la dilay iyo halkii ay ku dambeysay waxaad moodaa marka si fiican aad ugu koorgasho waraysiga Fahad Yaasiin waa waraysi horta la diyaariyay weeyaan maxaa la jeedaa waraysi la diyaariyay waraysi yani laga shaqeeyay oo wariyaha iyo la waraystuhu ay isla ogyihiin waxay horay u diyaariyeen kadibna wax la soo diyaariyay oo qorshaysnaa oo qaabaysnaa oo habka loo maaragtay dhigahayo iyo geedi socodka waraysiga oo dhan wax maaragtay to macnaha waxaad ula jeedaa su'aalo furan ma ah waa su'aalo hore la isula bandhigay waa yani erayo uu ku darsan karo wariyuhu waa sax oo waa caadi waraysiyada de inta loogu talagalay follow up ka dhaxmanay in ka badan baa ka dhax imaanaysaba oo inta badan maaragtay laakiin aan ka hor imaanaynin qorshihii loo dejiyay waraysiga xiriir la leh marka waraysigu maadaama uu qaabka u eg yahay oo nooca uu yahay haddana xogo badan oo aad iyo aad xasaasi u ah oo khatar badan ay ku gadaaman yihiin oo ummadani in badan ay maaragtay meel ay u raadisay iyo meel ay u marta ay la'ayd yaa qayb ka ah waraysiga marka laga yimaado waxyaalaha maaragtay shakhsiyad weerarka iyo iska maaragtay isdifaaca iyo maaragtay hawlaha la xiriira marka laga yimaado xogaha maanta la baahiyay waa kuwa aad xasaasi u ah runtii wax badanna ay ka soo kordhayaan qolada de hadeer
hay-adin gacanta ku haysa iyaduna xogay haysaa Fahad Yaasiin xogu la baxsaday kuwii la baxsaday marka waraaqa kuma qornay qalbigiisu malaahiga ku watay oo kaasa way bal arinta Ikraan Tahliil gabadh sargaalada ahayd Fahad ugu horeyn waxa uu cadeeyay gabadhan inaysan hay'adan isaga tirsaneyn markuu yimid inta uu isagu hay'adaas xilliga ku xigeenka oo ahaa iyo xilliga uu agaasimaha ka ahaaba intii uu joogayna wax shaqo ah oo ay hay'ada gabadhaas u qabatay ama wax xila oo ay ka haysay ama wax xubin oo ay hay'ada ka ahaydinaysan jirin waxa uu yiri xilliga Cabdullaahi Sanbalolshe ayay hay'ada ka tirsanay gabadhaasi laakiin xilliga aniga aan imid hay'ada kamayna tirsanayn hay'adana wax shaqo oo intii aan joogay ee labada jeer ahayd ay u qabatay ma jirin arintaasi haddaan dul istaagno wax jiri kara mise waxaan jiri karin horta inay arintaas jirtay in kale waxa cadeyn kara waa saraakiishii shaqada la wadaagay iyada ay shaqo wadaaga ahaayeen gabadhu inay hay'ada ka tirsanayd waliba ay ahayd hogaanka maxaan ku idhaahdaa to dabagalka dhinaca internetka ama dambiyada internetka iyo maxaan ku idhaahdaa to hawlaha la xiriira cyber security-ga inay hogaankiisa ahayd waa xogta rasmiga ah iyo xilkii ay u haysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayuu ahaa hadii marka isagu uu xilkii ka cayriyay oo uu meesha ka qaaday de sabab ay u sii dhex joogto meesha iyada oo aan ka shaqeynaynin hay'adii oo waliba mas'uul ahayn de anu ma garan karo cid garan kartaa hina ma ay jirto wuxuu leeyahay gabadhii ma shaqeynaynin haddana isaga sheegaya in laga dhex qaatay meesha hay'ad meesha habar Khadiija yaa la yiraahdaa meesha xaruntii nabad sugidda iyo sirdoonka in laga dhex qaatay isaga haddana sheegaya waxa weeyaan marka hadalada Fahad Yaasiin waxa ku jira tarsaasi waraysigu waa tarsaasi iyo cabasho iyo isdifaac iyo eedayn saddexda qaybood buu isugu jiraa oo iska wada hor iyo daba imaanaya oo aan jid iyo jahad toona lahayn oo hadda waxba ku qowlaya haddana waxay kadib waxba maaragtay to yaa ka hoos baxaya oo wixii ba waagi hore been muna sheegi jirin baan u maray maxaa la jeedaa hadee wax badan baa isugu hagaag lahaad haduu beenaala hore ahaan laakiin haduu bilaabaya sida ay muuqata hay way iikaadi waraysiga oo dhan uma gollihin waraysiga qaybaha kale waa ma intan hadda qaybta gabadha uu kaga hadlayo waa qaybta isugu jid iyo maaragtay isugu daba wareega badan weey okay oo aad ka dareemayso khalkhal iyo cabsi iyo indhataag iyo maxaan ku idhaahdaa to maaragtay khalkhal dhinac nafsiyana ah يا تشيكيسه body language kiisuna muujinaya marka wax badan baa khaldan Fahad Yaasiin gabadha markii laga yimaado inaysan hay'ad u shaqeynaynin oo qiray waxa kale oo uu sheegay in saddex mas'uul oo dawladda Soomaaliya ka tirsan oo saddexduba hadda xilal hayaan oo mid xilkii isagu uu hayo oo Mahad Salaad Maxamed uu yahay xildhibaan hore ahaa haddana taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Madane Maxamed Xuseen Rooble iyo nin dhalinyaro ah oo wasiir ku xigeenka warfaafinta oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Al-Cadaala saddexda mas'uul ayuu sheegay inuu midi lahaa soo afduubkeeda iyo gaariga lagu soo qaaday inuu midi lahaa maskaxda ka dambeysay in gabadha la dilo in midi uu lahaa gabadhaas in al-shabaab loo gacan geliyo nin mahad karate la yiraahdo saraakiisha al-shabaab ka midana ay gabadhii bireeyay markii ugu dambeysay Fahad sidaas hadalka u dhigay yalkadiisa waaya bal hadda arinta marka kafada la saaro daliilo keenay Fahad Yaasiin nin buu ka tagay iikaadi هذا شيء نبغى تجي دليله كاني وحاول يدي سيدا إني شفت واحد ضدك الصومالية وكو حق سنكرتان وقولي بجماعة قال له وكو حق سنكرتان أنا جا مركان اللي قولها أمني جان سوي من ينام وربحين تقول لي بيا والدي يقولي أمني جان وقبته أول يدير قال حلكي بالله جا قاضي شبوتي مركان سوام مريان صوت جاي قولها أمني جان سو السعوديين شبوتي بالله يقول لي قالوا الله يقول الديار دين الدب اللي يقول عليه تركيا كنا ناخذ سيل الله فرش لي شركة أنا حكتها كشيء الكور هذا سوده أن horta nin buu ka tagay ka ana ugu darahaya waa Axmed Madoobe dadka gabadha dilay Axmed hore uu sheegay isaga wuxuu ma waxa tan uu ka iloobay laakiin ana ugu darahaya gabadha waxa dilay Axmed Madoobe iyo Al-Cadaala iyo Mahad muxuu ahaa iyo Mahad Karate iyo Maxamed Rooble iyo Mahad Salaad shantaas horta gabadha dishay
si isagu sheegay wuxuu markaa isku khaldayaa mahad karatay halkaa inaga dhig afartan soo hadhay alcadaala oo gabadha maxaan ku idhaahdaa to mu'aamarada ninkii maleegay ahaa iyo maxaan ku idhaahdaa to qaaday meel hebla geeyey mahad salaado gaari wata u geeyey halka iyo Axmed Madoobe oo maxaan ku idhaahdaa to ninkii baangada haystay wuxuu ninku marka eg markaad rabto inaad wax sheegto waxa la sheegaa wax loo qaateen ah suuragal ah aqliga bini aadanka ka gadmi kara in aad maaragtay to aad yani sidii qof uu shalal ku dhacay oo kale qofka hadii xanuunka qalalka la yiraahdo uu qabto waa wuxuu ku hadlahay iyo waxa kale ma kala garanayo xanuunka ka tambadinaya hadii dab ku dhow yahay waa ku dhacaa haduu ceel ku dhow yahay waa ku dhacaa yani dhamaan wixii control ahaa qofku uu lahaa oo dhan ba meesha ka baxaya marka anoo ixtiraamaya Mudane Fahad Yaasiin wuxuu kala garan laayahay dadkii farmaajo riday iyo dadkii dilay Ikraan Tahliil kuwii baa isaga darmay dadkii ay dagaalka isku hayeen ee farmaajo karkaarka weydaariyay wuxuu inooga soo bilaabay Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku xijiyay alcadaala ninkii idaacada ka qabsaday ahaa mahad محمد صلاح ونقول حلكيس لوريه أو نيجي جيل نيجي كان دير غلاهي سجى موسى بيحي بانقذها وتين موسى بحالكي محو حكيك عليه موسى السعودي واسكو مجا على عنين موسى بيحي موسى السعودي واسكو خالد يو جروب كذا ودنا عاصا وضيحات نقدر مركا waxay isaga khaldamay afartii ama dadkii nacaybka gaarka isaga uu qabay uu kala dhaxeeyay iyo dilkii Ikraan Tahliil yaa maaragtay wixii baa isaga dhaxyaacay mar hadii marka mawjaduhu khalkhalaana de idaacada codka Shiinaha meeshaad ka dhageysan lahayd baa waxa iska soo galaya tii Japan iyo maxaan ku dhahay South Korea iyo tii Soomaalida iyo waxba iska soo dhaxgalayo waa in marka dib inta loo habeeyo la hagaajiyo fiilooyinkii oo dhan dib u sax bay rabaan marka Fahad Yaasiin maskaxiyan ma aha hadda qof maarkay Fahad Yaasiin waa sargaalka ugu saameynta badan hadda siyaasadda Soomaaliya waa ninka ama khalkhalkuna waa jiraa ma u diidan saameynta oo saameynta uma diidani laakiin khalkhal waxa jira nafsiyan iyo mid siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed eg qofku deganaanshaha iyo xasiloonidu waa qayb kamid ah waxa weeyaan moogtahay warka uu sargaalkani marka la fiiriyo Fahad Yaasiin marka la fiiriyo waxyaabaha uu dalishanaya meesan maangal noqon karin oo aan la oran karin nimankan hadda fiiri taliya mahad salaado horay marka xildhibaan u ahaa waxa uu si toos ah oo aan leexleexad iyo bareer oo aan leexleexad lahayn dilka Ikraan ugu eedeynayay Fahad Yaasiin oo lahaa Fahad baa gacantiisa ku dilay oo Fahad baa maaragtay gabadhaas ku maqan tahay محمد حسين رابلي ولي فهد لقما مقال لكن وحسنا شيء يعد gabadhaasi dishay iyo dilkii aamina bayna isla xiriiraan oo garanay cid dishay isagana ay soo hanjabeen buu marar sheegay alcadaal isagoo kiiskan aniga inta aan arkay kamuunan isagoo cid ku eedeynaya gaar ma arag laakiin isna wuxuu kamid ahaa ragii dagaalka siyaasadeed uu kala dhaxeeyay tiimka xilka hayay reer Muqdisho qabsaday SNTV meelaha qabsaday musiir ku-xigeen buu ka hayay dhinaca kale u leexsaday marka aan fiirino marka mahad salaad oo hadda taliyaha nabad sugidda xilligan xildhibaanaha qaabka uu Fahad u eedeynay iyo qaabka hadda Fahad uu mahad u eedeynayo maxaa ku kala saari karaa labadan nin waxaan ku fiiri aduu hadda isku qoorgoynaysa aday ku taalaa oo maaragtay waxaan isku walaaqmaynin aad isku walaaqayso hadama Fahadna wuxuu ilahaa mahadna wuxuu ilahaa Fahad baa dilay Fahadna maanta wuxuu ilaahay adigu maxaa ku kala isku walaaqayso oo maxaan ku ilaa waxaan islahayn cir iyo dhul aad rabtay inaad isu keento aday gaar ku tahay laakiin hawshu sida uu u sheegahayo Fahad waxba uma jiraan taa way caddahay anagu goobta ma na joogin goortii la dilayna ma na ogeyn laakiin alcadaala soo qaaday oo shirqoolka waxa soo abaabulo soo agaasimay roob la soo abaabulo soo agaasimay alcadaala loo diray mahad buu u dhiibay mahad salaad buu u dhiibay mahad karatee buu u dhiibay shabeellada hoose la mariyay halkaas laga bixiyay jilib baa la geeyo gabadhii halkaas mahad karatee ku qashay buu inay yiri Soomaa warkaasi waxba kama jiraan waxa la yiraahdaa tarsaasi waa tarsaasi weey
waa wax uu isku dayayo waxaa ninkani uu leeyahay lahaa oo welina uu leeyahay koox maxaan ku idhahdaa to isaga wuxuu sheegaba qaata kuwiiba warkan u sheegahayaa Soomaali uma sheegahayo Soomaaliye inaysan ka qaadanaynin waa og yahay laakiin xaqiiqda iyo dhabta marka loo yimaado wax walba hadduu sameeyo far kasta hadduu qoro aayad kasta oo quraan hadduu akhriyo Soomaaliland 14 boqolkan yaa xafidaano 13 jira 14 boqolka hadduu akhriyo meel la ugama galgalan karo dilka Ikraan Tahliil xaqiiqdu waa sidaa hadda uu ka galgashay maya waxaan waxa la fiiri anoo hadda waa dhihi karaa inta soo istaago waa dhihi karaa madaxweynihii Haiti niman intay u dhaceen gurigiisa ay ku dhex dileen colkii hogaaminayay ana dilay colkii dilayay ana hogaaminayay waxa ila socday hebel waa dhihi karaa qofku wuxuu raba afka uu ka dhihi karaa wax alaali wuxuu rabo qofka afka ka dhihi karaa laakiin marka lama soo qaadayo waxa waaqica laga hadli jaamaco marka hadda la fiiriyo Fahad Yaasiin daliil cad buu keenay oo uu sheegaya uu leeyahay hadii ayna sida u jirin maxaa la igu diiday maxaa horta markaan idhi markii la yiri ka keen gabadha warbixin ka keen ra'iisul wasaare igu amray waxaan idhi haye warbixinta waan ka keenay shirka amniga qaranka warbixinta keenayaan sugu imaan markiiba ra'iisul wasaare isagoo shirkiina waa diiday anigana xilkiiba iga qaaday kadib markii shirka amniga madaxweynuhu uu yiri waa la ilaaminayaana aniga aan tur ka soo duulay ee aan Djibouti soo marayna Djibouti baa la igu hortagay la iguna dili gaaray diyaaradina dib la igu celiyay fiiri iikadi hadii ayna sida u jirin maxay sidaas maaragtay aniga la igu galiyay oo loo qarinayo xogtaas ra'iisul wasaaruhu inaan amniga qaranka isugu nimaadno xogtii meesha ku sheego ra'iisul wasaaruhu inuu isagu qayb ka ahaa maaragtay dilka gabadha aan meesha ku cadeeyay muxuu diidayay buu leeyahay soo wax la garan kara ma waxaas warkaas fiiri taasi ma noqonayso qeyl inaan soo kaca la diiday oo kan ra'iisul wasaaruhu isaga wuxuu ka dalbaday isaga xafiiska ra'iisul wasaaraha yaa wuxuu ka dalbaday xog dhameystiran oo la xidhiidha kiiskii dilka Ikraan ee ma la dhihin noo ballami maxaan ku idhaahdaa guddiga amniga qaranka isaga maxaa u diiday xogtii ra'iisul wasaaruhu qofka xukumo fiiri aan dhameystay kaadi ra'iisul wasaaruhu qofka isaga xukumo ahaa Soomaa garan wasaaradda amniga hoosta ta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonku cirka kama soo dhacdo Soomaa garan farmaajina toos uma hoos tagto wasaaradda amniga gudaha ay hoos tagtaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Soomaa garan maya wasaaradda hoos tagtaa wax madaxweynaha taliyaha ugu magacaabay waa fiiri wixii dhoobo walaaqa ahaa marka laga hadlayo waa gooni laakiin sharciga iyo nidaamka dalka markan ka hadlayno halkaas hay'adaas hoos tagtaa waxaana magacaabay golaha wasiirada magacaabay isaga farmaajo ma magacaabin hal xil oo farmaajo uu magacaabay ma jirin waa un loo gudbinayay okay wasaaradii amniga qaranka ee ay ahayd shaqadan in uu gudbiyo iyaduna xafiiska ra'iisul wasaaraha u soo gudbiso oo xog la'aan markuu arkay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si toos uga dalbaday in xog dhameystiran oo xilliga ka keeno dilka gabadha la yiraahdo Ikraan hawshii laga sugayay midaan ahayn buu ku docfuray marka oo uu doonayo in uu ugu raadgado eray bixin cusub iyo af cusubna uu ugu samaynayo wixii dhacay oo markiiba dagaal siyaasadeed buu rabay inuu u adeegsado sababta loo xiray maxaan ku dhahdaa diyaaradda looga reebayay Djibouti iyo waxa hadda uu ka hadlayana wax isla ma aha laakiin waqtiga ku simay in uu gurada isu geliyo oo uu isla xidhiiriyo wax allaale iyo wixii dhacay oo dhan jiray ee dagaal siyaasadeed ahaa oo dhan baa waxa uu u adeegsanayaa dilkii Ikraan Tahliil Faarax oo uu doonaya in uu kaga gabado taasina kama difaacayso haddii qorraxdu halka ka soo baxdo kiiska Ikraan Tahliil ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Cabdullaahi Kulane Faray Yaasiin Faray hebel wadna qabad hebel Cabdiraxmaan Dheere Cabdullaahi Dheere ilma waxaasoo dhan baa ku wada jira qof walbana cadaaladda uu dhadhamin doona goor ay noqotaba ama tii Allah sugayso oo dhadhamin ama tan adduunka yu dhadhamin laakiin lagagama maaragtay galgalan karo oo lagagama warwareegi karo
hebel baa dilay iyo hebel baa dilay iyo hebel baa dilay dadkii dhintay taliyihii hay'adda ugu sarreeyay hadduu maanta ina leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel baa dilay soo wax la qaadan kara ma taliyuhu isagoo degan bal horta warka ha sheego markaasaan qaadanaynaa warkiisii hay oo kaasa aad baa mahadsan tahay taliye Fahad Yaasiin taliyihii hore waxa uu sheegay in gaariga lagu qaaday ayna hay'adda nisa lahayn ee ay iska lahayd xildhibaan mahad salaad uu ahaa alcadaalana maaragtay uu qaaday gabadha horay markii maalmihii kiiska gabadha cusbaa ee la weysanaa hay'adda nisa lagu maqan tahay iyo xagee ka baxday la lahaa xildhibaankii gabadha ku matalayay baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ahaa Daahir Amin Jeeso saxaafadu la hadlay waxa uu yiri gabadhan markii gaarigii CCTV kaamiradu qabatay ana xafiisyada hay'adda nabad sugidda mid kamid ah la iga yeeray waan tagay kaamiradi baa la ii furay gaarigii baan aragnay gaarigiina waxa la ii cadeeyay inuu yahay gaari hay'adda nabad sugidda ay leedahay sargaal maaragtay hay'adda nabad sugidda ka tirsanna oo wadna qabad la yiraahdo gabadha uu qaaday haddii hore hay'adda nabad sugidda ay sidaa ugu sheegtay xildhibaankii gabadha maantana uu Fahadina leeyahay gaarigu nisaba ma lahayn waxa lahaa mahad salaad bal arinta ka waran saysu qabanaysa adduunka wixii dambi ka dhacay oo dhan mahad salaad baa lahaa taaway jawaabteedu dunidan aynu ku noolahay wixii shantii sano ugu dambeysay wixii dambi dhacay mahad salaad baa mas'uulka ah okay mahad iyo Fahad maxaa gaar oo ka dhaxan kara ayaga yaqaana taa ayaga u taala laakiin hadee inagu waxaynu aragnay urusada oo Fahad oo mahad ku dhigan baa aragnay horey soo malaha mahad baa Fahad ugu dhiganaan jiray Soomaa marka 5 sano mid baa lagu dhiganaanaya okay way laakiin dib dambe Fahad oo imaan maayo Soomaaliya waxa la yiraahdaa yaxaska baalka la yiraahdo arab dheer bulaaba la moogta Fahad wuxuu leeyahay aniga wariga nimanka hadda meesha jooga gabadhana dilay noloshoodii intii aan xamar jooga waxba kama ina sameeyna xamar marka aan tago anigu aan safar ku maqnahay bay idaw maraano ay marra maaragtay gurigayga hadda weerareen meesha uga cashan way marra ay Djibouti wax ka sameeyeen marra ay gabadha dileen gabadha markii la dilayna waa maqnaa buu leeyahay oo dalka waan ka maqnaa waa sax waa runtiisa waa libaax dhalay oo ina shabeel caana kalisa muxuu uga celin waayay xilka isaga celin waayay isagoo jooga kii xilka laga qaaday uu soo carray barqacad waliba isagoo karton lagu wado karton baa waxa lagu saaray diyaaradda Turkish Airlines ugu dambeyn hadalka Fahad hadda ka hor waxa la yiri hadda ka hor yaxaaska bahalka la arab dheer buu lahaa baa la yiri Soomaalian garan waxa weeye dagaalka ila meereysada hadda aan aragno inuu u bilowday Fahad iyo mahad arabkii marka uu ku qaraaban jiray soo intuu meeshan oo kale iska seexdo meelaha carabka u dirsan jiray wuxuu rabo ku soo qaadan jiray dawaca u timid waxa jiro walaalo yaa ma ha roos baan leenahay kayduna ay u gaaban yahay ma isiisi naarmad ii soo celin ma wallahi waa ku soo celinaya hayagu carabkii uu siiyay halkaas oo kale intee u istaagay ayar mashxarad ku dhufatay waxay tiri ma salaamaniyo dib dambe kuugu soo noqon maayo carabkana waa la tagay adna dawacay buu diil wabi ka sharan diil wabi ka go ha maalinkii waa ugu dambeysay baa la dawaco ay tagto wabiga diishiis wabiga ha iyo meelaha hadda Fahad Yaasiin horta soo Turkiga u tagay marka xawar waa uga dhamaadada saamba de waa aad badan ma soo su'aasha ugu dambaysa muhiimadu waxa ay tahay su'aasha haddaan u soo noqdo waraysiga Fahad Yaasiin waa waraysi de qof waliba uu fahmi karo dan waraysiga dhagamaad la arinta ikraan maxaa Fahad ka runa maxaa saka beena waxa uu ma aniga aragtida sida muuqata Fahad wuun isdifaacayaa mooyaane hal kalmo oo runa kaba sheegin hal kalmo oo runa kaba sheegin hal kalmo oo loo qaateen ah xitaa kama aanu sheegin sababtoo ah wixii la hayay iyo xogihii la hayay iyo xaqiiqdii meesha taalay waxana isma qariyaan adigu haddaad damacdo awowey Muuse Cawl baa Allahu naxariisto dadka wuxuu yiri sagaaro baa saalam muuqata ee doonaysa inay aasto waarta sagaaradu meel bay dhigtaa way aruurisaa dagaal bay ugu diyaar garoobaysaa bahasha ay aasayso waxay rabtaa in maroodiga waxa la ay kula dirirto maroodigu inuu ku kufo kadibna ay ku disho dagaal ka dhaxeeya maroodiga iyo sagaarada jira marka buur bay u sameynaysaa سالها أي أرورنا يزو هل ميلا بيلا إيمان يسا waa qayb kamid ah tabcooyinka dagaalka sagaarada sumid waliba oo kamid ah sagaarada halka ugu soo saaloonayo ee bahasha loo aruurinayo ku dhintaa maroodina wax kuma noqdo Soomaaliya garan marka wax muuqda oo aan qarsoomeynin
يسكت يا ولا كان فهد ياسين إنه قريه لكن كيس كان سيدا ويسوي هذا وضيع لسنة يوم من نقول دونه كيس كان حقيقة دي سوى باريا كيس كان حقيقة دي سوى سو صار دونا كيس كان هيدا النبض سجد أيا شقة وقبضن هذا إسقى كايسة سمعنا كران كيس كان ضد فربضن بلوك تلقي دونا كيس كان يوروب يا أمريكا اللي سجد بتجي دونا كيس كان سهل من نقول دونه وحلي ده دونه سي تشيس يلعب يلهوي لوده إن هبل بسوا بقولي هبل باللودري هبل بسوا قاضي أو ميل هبلا لمريو ميل هبلا لقوا قشي با تشيس كم هذا ما عنده كيس كان سووا حسلية هاي أنت أسوق كذا مانيا لكن ما كذا مانيا وما صنطاي بالمش كذا ماذا وقان دون هذا وضيال أنت أصلا كوسو جبجبية خلاص كنتني كلام ضم واحد ذلين هاي سلاسيو نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.